guddiga gaadiidleyda saddex taayirlaha ee loo yaqaan tigaha ama bajaajka ee ka shaqeeya gudaha magaalada Burco ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen maanta magaalada Burco waxay cabasho ka muujiyeen faragelin ay sheegeen inay ku hayaan qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee Burco. qaar ka mid ah xubnaha guddigaasi oo ka hadlaya shirkaasi jaraa'id ayaa waxa ka mid ah hadaladoodii annagoo ah gaadiidka tigaha ee iskaashatada horseed ee gobolka Togdheer waxaanu ka cabanaynaa maamul raagay oo muddo 2 sanadood ku siman maamulkaas oo lugaha nagaga martay markii aanu isnidhi iska rida dawladda hoose xildhibaanadeeda lugaha ku martay oo diiday in uu xisaabtamo oo dan yarta hantidii ay u hayeen iskaashatada iyo wixii lagu ballamay inuu ka xisaabtamo inuu maamulka xilligiisu markuu dhamaaday inuu ka dego waxaanu sheegaynaa maamulka gobolka waxaanu sheegaynaa kaga cabanaa arintaas baanu ka cabanaynaa in wax nologa qabto dadkan waa dad dan yara annagoo ah iskaashatada gaadiidka horseed inaanu ka cabanayno maamulkayagii oo xisaab la'aan iyo qas iyo buuq iyo hantulimis intaba nagu haya iyadoo lacagta gaadiidka laga gurayo aan qofna laga qancin kuwa shacabka bahalaha wata caburina nagu hayaan noona adeegsanayaan mar walba ay leeyihiin lama bedeli karo xildhibaanada iyo golaha deegaanka nagu caburinayaan waxaan u sheegaynaa marka dawladda iyo cidda qusayso inay arrinkayga wax ka qabtaan waxaanu halkan ka sheegaynaa inaanu ka cabanayno maamulka golaha deegaanka ee dawladda hoose iyadoo ay nagu hayaan caburin aad u fara badan oo gaadiidleyda yaryar tigaha ay wadato ay ku caburiyaan maalin walba in lagu xidho saldhigga iyo dawladda hoose iyo meel walba lagu xidho deetana laga ganaaxo la yiraahdo 100 kun oo ganaax iska bixi nin aan 100 kun oo ganaax ba shaqaysan maanta in askari iska qabsado sida darteed markaa waxaan ku cabanaynaa in maamulka gobolka iyo ka dawladda hoose iyo ka dawladda dhexaba inay si degdeg ah ay wax uga qabtaan arrinka annaga oo ah tigaha waxaan halkan ku ugu mahadnaqaynaa taliye qaybeedka gobolka Togdheer oo si wacan noogala ballamay arrinkii aan u soo bandhignay